dowladda Soomaaliya iyo madaxda qaranka Soomaaliyeed markii ay imaanayeen oo runtii iyada markii ay magacaabistaas dhacday aan bilownay inaan diyaarino qaabkii loo soo dhaweyn lahaa iyo sidii lagu soo dhaweyn lahaa iyo sidii maxay ahayd ummadda Soomaaliyeed ee mid uga noqon lahayd iyo sidii hal xaflad loo qaban lahaa oo loo midaysan yahay oo aysan u dhicin badanaa waxaa dhici jirtay 100 xafladood oo kala duwan oo dadku ay kala jaban yihiin marka intaas waxaan process gareeyay aan ka shaqeeyay in ummaddu ayadoo mid qof mucaarada iyo qof muxaafada iyo qof aniga taageersan iyo ku diidan aan taageersanayn maxay ahayd inaan meel isugu keeno oo nal xaflad oo loo dhan yahay aan u qabano dowladda Soomaaliyeed taas runtii waxay ahayd mid ugu guuleystay wala socota xafiiskan community-ga ama gudoominimada ee jaaliyada waa xafiis aad u ballaaran oo aad adag runtii caqabado badan laga yaabo inay kaaga hor yimaadaan marka kaliya baa hadda muuqda ma jira xafiiskii dadkii shaqada kala duwan qaban lahaa ama guddigii fulinta waxyaabo badan ka xigsan lahaa runtii walaal waa laga yaabaa aniga bisaad aragtay laakiin way jiraan dad badan oo shaqeynayo oo de way waxa jiro horta halkan wadankan Ingiriiska horta waxa ka jiro runtii maadaan ka gaadhay oo mar hore aan aniga laftigeedu gacan weyn ka geystay rag odayaal ah oo isxilqaamay oo guddi sameeyay la yiraahdo guddiga guurtida Soomaaliyeed ee wadankan UK oo UK dhan oo isku tagtay ah waxay ka jiraan Birmingham waxay ka jiraan Bristol waxay ka jiraan Sheffield waxay ka jiraan London intaas oo isku tagtay ayaa waxay sameeyeen dalad la yiraahdo odayaasha Soomaaliyeed ee UK la yiraahdo guddiga guurtida Soomaaliyeed ee UK la yiraahdo guddigaas guurtida runtii aad bay ila shaqeeyeen markii magacaabistan ay dhacdayna waan u tagay waan u sheegay in hawshan la soo diray waxayna ballan qaadeen inay shaqada ay la qabanayaan ilaa haddana horta way ila shaqeeyaan waa qodob waxa runtii jiro guddigii hadii de maamul uu jiro maamulkaas wuxuu leeyahay fulin guddigii fulinta ee ila shaqeynayna runtii wuu jiraa oo waliba waxaan u malaynayaa inta badan ragga la eedeeyaa waxa la yiraahdaa dumarku meelaha kuma jiraan oo shaqooyinka lagu madare aniga gabar ayaa ay gudoomiye ku xigeen oo shaqada inta ugu badan iyada qabataba waxaan rabaa su'aal dadku isweydiiyaan inta badan madaxda Soomaalida markay yimaadaan ninka markaas ku dhow ama xaafadiisa ah ayaa hawlihiisa kala duwan qabta marka sidee uga banaantahay arrimahaas adigu runtii arrintaas waa iga qosliday waa arrimaha caqabadaha jira ay kamid tahay horta oo Soomaaliya caqabadaha runtii aad u jiray kamid tahay laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin dawladdan hadda jirto runtii anigu hadda hawshan hadda aan hayo community-ga ma bilaabin waxaan bilaabay 1995 aan bilaabay aan wadankan ka bilaabay inaan community-ga arrimihiisa ka shaqeeyo hadday tahay dawladda iyo hadday tahay Soomaali iyo hadday tahay intaba waxaan hore ugu soo dhex jiroon ka shaqeynay khibrad badan aan u leeyahay waxaad sheegayso waxyaabo badan oo soo arkay ayaa kamid ah laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin dawladdan hadda jirta maanta madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamed waxaad u malaysaa inay wax badan uga duwan yihiin dawladii hore ilaa markii la magacaabay hadda waxa timid wadankan oo ka soo horeysay intuu madaxweynaha imaanin koor timid wasiiradda arrimaha bulshada Maryan Qaasim Maryan Qaasim markay timid waxa la filayay sida caadadu ahayd ba iyada community-ga ay gaar ahaan ka sii tirsan tahay inay ku soo degto ayagu soo dhaweeyay ayagu soo qaadaan ma dhicin Maryan Qaasim waxa igala soo xiriireen xamar waxa la yiri Maryan ba soo baxayso waqtigaas bay soo baxaysaa waqtigaas ay imaanaysaa iyadana kula soo xiriirayso markay timid waxay degan tahay magaalada Birmingham iyada waa reer Birmingham halkan bay laftigeeda ka tagtay oo waa dadka reer UK laga qaatay ay kamid tahay wayna soo xiriirtay isla markiiba isla maalintii ay timid maalintii ku xigtay waxay soo dirtay jadwalkii ay wadankan ku joogi lahayd ay soo dirtay waxay runtii maxay ahayd 3 xafladood oo kala duwan ayaan u qabanay Birmingham Bristol iyo London ayaa 3 xafladood ku sameeyay marka waxaad moodaa marka hadda dawladdan inay ka arursan tahay dawladihii hore cidda ay shaqada u dirsadaan ay ku kalsoon yihiin ayna daba istaagayaan marka taas caqabadaas in laga gudbi doono rajaynaya insha Allah waxa jira community-da Soomaaliyeed dad sidaas oo kale mutadawiciin oo ahaa hawlaha madaxda qaban jiray ka hor intaan lagu soo magacaabin 95 baa sheegtay inaa bilowday rag saaxiibada ahaa oo hawlaha laftooda kula qaban jiray dumi jiray maartay wanaaga iyo soo dhaweynta iyo waliba jaalidii kale ee shaqeyn jiray hawlaha ku mashquulsanaa bal ka war ayagana xirin noocay wada leedahay runtii jaaliyadaha Soomaaliyeed ee halkan ka jiro waxay u badan yihiin communities-kii aan sheegaynay ee service-ka dadka u qabanayay runtii waa wada shaqeynaa waa laga yaabaa markii ugu horeysay ee la magacaabay inay yiraahdeen arma shaqadiina ninkan iyo caqabad ku noqda laakiin waa la fariistay community-yada qayb badan oo kamid ah waa la sheekaystay shaqooyinka ay hayaan waa ku amaanay qaar baa shaqooyin hayo wadanka dalka u hayo
qaar baa dadka shaqooyin badan u hayo qaar baa xabsiyada xitaa caruurta yararkaa soomaalida ku xiran ugu tago qaar baa u doodo kuwa badan oo wanaag badan qabtaa way jiraan kuwa aan waxba qabanna way jiraan sida la sheego oo runtii aanan community ahaan sida ay ku magacaaban yihiin aan wax u qaban qaar badan oo kamid marka waa la fariistay qaarkood way ila shaqeeyaan hadda oo shaqadan aan hayo qayb bay ka yihiin qaarkood way soo dhaweeyeen qaarkood wixii ay iga baahan yihiin iyo maalinta ay baahan yihiin waan u tagaa runtii waan wada shaqeynaa midda kale dad badan oo waxaa jiro oo ku jiro hami aan marka laga soo tago communitygaas oo ku jiro hami siyaasadeed oo ku jiro ama hami inay maaragtay ay noqdaan communityga leader ay u noqdaan kuwaasna runtii waa soo dhaweeyey sababta aan u soo dhaweeyeyna waxa waaye maadaama aan wada abaabul oo doorashada ay imaanayso berito in qof kastoo ayaga ka mid yahay doorashadaas uu kasoo qayb galo haddii uu ku guulaystana oo noqdo midkii leader u noqonaa communityga hagaag halkan waxaa jira jaaliyado kala duwan oo soomaalida ah haddana iyagu midaysan oo leh gudiyadii shaqada kala duwan qabanayay guddoomiye leh sida kuwa puntland kuwa galmudug kuwa ximan iyo xeeb yani dad badan oo saas oo kale oo midaysan baa jira marka xirir nooceeya ayaa kaala dhexeeya gudiyadaas walaal runtii aad baan kaaga mahad celinahay su-aashaas dadkaasi waa dadka ugu wanaagsan oo meel loogu hagaagalay runtii dadka qaar waxaa laga yaabaa in dadkaasu markay is ururiyeen ay ismagacaabeen ay u arkaan inay caqabad yihiin ama community kale ay caqabad ku yihiin laakiin dadka ugu badan ee hadda ila shaqeeyaa waa communityyaasha aad sheegayso haddaan carab ku dhufto waa communityga puntland waa communityga awdal waa communityga qaatumo waa communityga xeber iyo xeebood sheegtay waa communityyaashaas oo ka jira meeshaan oo is abaabulay oo iyagoo background ka dhiganayo deegaamada ay kasoo jeedaan is abaabulay oo guddiyo samaystay oo guddiyaal samaystay runtii kulligood way la shaqeeyaan weliba dee maxay ahayd marka iyaga loo baahdo madax lala xiriiray leeyihin haddaan maanta u baahdo inaan shir isugu nimaado waxaan la xiriirayaa qolo walba maxay ahayd ama group walba guddoomiyahooda iyagoo socdayna ku imaanayaan wax alla wixii soomaalinimaana diyaar bay u yihiin runtiina dadkaasi waxaan aad iyo aad u bartay hadda waqtigii intii la magacaabay kadibaan aad u bartay aadna u dhexgalay qadiyadda ay raadinayaani ma aha kala faquuq soomaaliyeede waa soomaali midaynteeda wax ay ka shaqeynayaan hagaag dalkan aan joogna britain bal ka waran wada shaqeynta dhinaca communityada kale ee caalamka ku nool caalamka ah ee wadankan ku nool wada shaqeyntooda iyo weliba dowladda britain dowladda britain horta wax badan arrimaha soomaaliya aada uma danayn jireen sax waad la socotaayo dee 20 sano aan burbursanayn si kastaba ha dhacdee arrimaha soomaaliya way indhaha ka qabsadeen maysan dhex gelin laakiin hadda waxaad moodaa shirkii february markii laga soo bilaabo iyo tegitaankii ka horreeyey oo tegayay william hague magaalada muqdisho ilaa hadda arrimaha soomaaliya aad iyo aad bay u daneeyaan shalay maalin doraato waxaan tegay oon ka qayb galay shir ka dhacay baarlamaanka wadanka soomaaliya oo baarlamaanka wadankan ingiriiska aan idhaahday sorry waxaa joogay xildhibaano badan oo wadankan ah ayaa joogay xildhibaan kasta oon la kulmo wuxuu aada u danaynayay inuu wax iga wareysto arrimaha soomaaliya inuu yidhaha soomaaliya xaggee maraysa howlaheeda maxay ahayday meel wanaagsan u marayaan shaqooyinku meel fiican ma idin marayaan maxaan idinka caawinaa taa marka waxaad dareemaysaa marka wadanka waxaa hogaamiyo dowladda hogaamiso prime ministerka hogaamiya David Cameron siyaasadda dowladdu marka ciddii ay la jirto shacabkuna intooda badan waxay u badan tahay inay taageeraan iyo xildhibaanadoodaba marka sidaa darteed foreign office-ka wadankan runtii mahadee ka gaadhay si fiican bay nogala shaqeeyaan wax alla wixii aan uga baahanan way nagala shaqeeyaan haddaan kasoo qaato example soo dhaweyntii madaxweynaha qaranka soomaaliya iyo xafladdii aan qabanay waxaa aada noo saaciday maxay ahayd wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankan waxaa aada noo saaciday oo nala shaqeeyey booliiska wadankan Scotland Yard laba booliis oo laba qaybood kala ah ayaa nala shaqeynaya oo qaybna ay ka socoto maxay ahayd qaybta racadka ee wadankan ee madaxweynaha iyo shaqadiisa howlihiisa qaabilsaneed qaybna ay ahayd qaybta kale booliiska tuutaha wata ah labadaba habeenkii xafladda way ka horay nala fariisteen waxay yiraahdeen wax alla wixii aad rabtaan oo idin qabano diyaar baan idin nahay ilaa maalintii madaxweynaha oo yimid iyo maanta ka shaqeeyayna way nala shaqeynayeen sidaa darteed marka waxaad dareemaysaa in ay u hayaan wanaag badan iyo soo dhaweyn badan arrimaha Soomaaliya waxa kaloo intaas sii dheer kambaniyaal badan oo wadankaana oo maxay ahayd oo ah shirkado badan oo wadankaana
ayaa waxay aad u danaynayaan inay arrimaha Soomaaliya tagaan kasoo qaad shirkii 8 bishii dhacay ka dhacay wadankan Ingiriiska dowladda Ingiriisku ay soo qaban qaabisay kasoo qayb galeen shirkado badan oo Soomaaliya kasoo qayb galeen ganacsato Soomaaliyeed oo badan oo wadanka gudihiisa ganacsato kamid ah ay ka qayb galeen runtii markii ay qaban qaabinayeen way soo weydiiyeen aniga waxay yiraahdeen wadankan gudihiisa yaa jaaliyada ah oo joogo oo raba inay ka qayb qaataan waan soo bandhigay ilaa iyo dhowr qofood ay ka qaateen oo ka qayb galay shirka waxa ka soo qayb galay ganacsato kale waaweyn oo wadankan ka soo qayb galay shirkaas runtii wuxuu ahaa shir ballaaran oo isdhexgal weyn muujiyay waxaad ka dareemaysay in ay rabaan dadka wadankan jooga xitaa inay danaynayaan inay Soomaaliya ganacsi ku yeeshaan oo ganacsi ay ka samaystaan oo xiriir dhow ay leeyaan ganacsatada Soomaaliyeed wadanka gudihiisa qaar baa gudaha wadanka Soomaaliya ka yimid oo ka soo qayb galay oo shir ka soo qayb galay oo Soomaaliya marka sidaa darteed marka dowladda Ingiriisku markaad fiiriso dhinaca maxay ahayd horumarintana diyaar bay noola yihiin inay horumariyaan dhinaca siyaasadana diyaar bay noola yihiin dhinaca kale dhinac kasto aad fiiriso waxaad moodaa maanta inay isku duubni arrimaha Soomaaliya balka waran jaaladaha Afrikaanka ah haddii example ay u baahdaan Soomaalida oo kale hab noocay u wada xiriirtaan walaal horta jaaladaha Afrikaanka laftirkooda hadda war isku dhownahay because adduunku sidiisaba waa maxay ahayd waa tuulo yar oo ku wada nool yahay kulligiis oo wadankan de hadda TV-gan aan ka hadlayno caalamiga oo adduunka laga wada fiirsanayo ayaa meel kastaba dadka isku xiray arrimaha Soomaaliya waa arrimo maanta taagan oo caalamkii oo dhan oo indhaha ku hayo sida aad arkaysaba qaasatan dowladaha waaweyn kan ku leeyahay waa Mareykanka iyo Ingiriiska iyo dowladaha super powerka lagu tilmaamo markii indhahoodu dowladda u soo jeestaan dowladaha kale ama Afrikaan ha noqoto ama Asian ha noqotee ayaga laftigoodu indhahoodu way soo jiidanaysaa oo waxay indhaha ku haynayaan laftirkooda hadda waadna ogtahay wadanka Soomaaliya hadda ciidamada joogahay waa ciidamada Afrikaana oo igada runtii Afrikan hadda way isku duuban tahay in arrimaha Soomaaliya wax ka qabato igad ayaa diyaar u ah maanta oo ka shaqeynayso sidaa darteed Afrikaanka wadankan joogahay markasta waxayna weydiiyaan xitaa maxaan idin qabanaa sidee la shaqeynaa wadankiina maaragtay maxay xalkiisa xagoo maraya wayna wareystaan waqti kasta oo u baahanahay oo waxaan qabtan raan wadno yimaado hagaag Cabdi Cumar anagoo ku jirna gabagabadii barnaamijka dhawaantan waxaad ka qayb gashay shir ay soo qaban qaabiyeen IGAD oo ay kaga hadlayaan arrimaha Soomaaliya gaar ahaan jaaliyada iyo aqoon-yahanada reer UK ay la kulmeen oo adigu qayb weyn ka ahayd ragii soo abaabulay aad ka mid ahayd sida maqaalkaygu ah marka Amazon ayaana hormuud u ahayd si ay arintaas ay Soomaalida ay fikirkooda iyo waxyaabaha ay qabaan ay u ogaadaan marka adoo soo koobiya maxay ahayd muhiimadda kulankaasi waa run walaal shirkaasi wuu jiray wuxuu dhacay 8 bishan iyo 9 bishan laba maalmood socday waxa uu ahaa mowduuciisu iyo ku saabsanaantiisu in IGAD madaxda IGAD ay la kulmaan qurbo joogta Soomaaliyeed ay qurbaha ku nool qaasatan dadka ku nool wadanka UK ee Soomaalida ayna u soo bandhigaan waxqabadkooda iyo waxa arrimaha Soomaaliya ay ka qabtaan ayna ka aruriyaan fikir ay ka qaadaan yiraahdaan maxaad tala nagu darsanaysaan sidee arrimaha Soomaaliya xal loogu gaari karaa la tahay haddii ay u baahdaanna wixii caawina ay u sameeyaan waxa kaloo muhiim ahaa oo muhiimadoodu ahayd in dad professional ah ay yiraahdeen oo dadka waxqabadka shaqooyinka hoose technocratka dadka oo shaqooyinka hoose qaban karo haddii la heli karo oo Soomaaliya la geyn karo inay diyaar u yihiin iyagu in ay dadkaas ay fangareeyaan oo dhaqaalihii dadkaas ay u baahnaayeen inay bixiyaan ay diyaar u yihiin ma aha in ayagu shaqeynayaan laakiin Soomaaliya gudaheeda haddii dhakhtar uu jiro kale haddii nin wax maxay ahayd wasaaradda waxbarashada ka shaqeynayo oo maxay ahayd macallin uu jiro kale haddii wasaaradda beeraha kale ninka shaqeynayo beeraha kusoo kale uu jiro kale dadkaas wax bartay oo wadankan wax ku bartay wadankaana ka shaqeeyo haddii wadankooda inay kasoo shaqeeyaan ay u gacan banaan yihiin ayada laftigeeda waxay ahayd fikir ay wadeen oo ay rabeen oo soo bandhigaan dadka wadankan UK ku nool runtii laba maalmood socday waxa